kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Caabudwaaq wasiirro iyo xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug State odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ahaa xog waraysi ku saabsan sidii dadka deegaanka ay uga qayb qaadan lahaayeen doorkooda ku aadan doorashada la filayo in bisha Agoosto ay dalka ka qabsoonto iyo in lagu taageero go'aankii ka soo baxay shirka madasha qaranka ee dhawaan ku soo idlaaday magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka degmada Caabudwaaq Muxyidiin Cabdi Geelle ayaa ugu horreyn ka hadlay goobta kulanka ujeedadan halkan isugu nimid maanta shirkan waa isxog waraysi looga hadlayo arrimaha maanta marxalada ay Soomaaliya marayso sidii loogu gudbi lahaa maadaama shararkii Muqdisho ay soo dhamaadeen xildhibaan Farxiye Cabdullaahi oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay bilaaban doona insha Allah hadii Ilaahay idbo ay Galmudug haaminaysa dib u heshiisiin deegaanka ka bilowda beelaha walaalaha ah oo wax kala tirsanaya waxay doontaan bahan noqotay hadii Ilaahay idmo dib u heshiisiin baa loo qaban doonaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dowlad goboleedka Galmudug State Cabduladiif Cabdullaahi Warsame ayaa tilmaamay muhiimadda kulankan muhiimadiisa ugu weyn waxa waaye in la kala warqaato gaar ahaan xoog wuxuu saarayaa siyaasadda Soomaalida oo maanta meesha ay marayso sidaa darteed waxa waaye inagu hadii aynu nahay dadka deegaankan degan maamulkan baynu ka mid nahay Galmudug ama aan jeclaano ama aan dooda ka qabno waxa in la gudbaan marka waxay tahay maadaama dadkaas wax la leenahay shir doonayna marka xilligii baa la joogaa loo midoobi lahaa wixii Soomaali nagala dhaxayeen inaan la qaybsan lahayn oo aan xaqanaga aan ka raadsan lahayn wixii gooni noo ahna aan dad fiican u keensan lahayn qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee ka hadlay goobta ayaa soo dhaweeyay kulankan xog waraysiga haddii la yiri maanta xildhibaanka la dooran konton qof baa dooranaysa haddii la Ilaahay shukrigiisa way aan horta anigu aad iyo aad u dareenayaa qodobka la yiraahdo dib u heshiisiin in la sameeyo waa soo dhaweynaynaa go'aanka ka soo baxay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada kale go'aanka la soo gaaray ayaa la Cabdullaahi Jaamac Home Cable TV Caabudwaaq.